بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتي كوسا بسند وربحين يا عافماتك يا هو واحد وشيء وزارة عافماتك يا وزير. أنت هنا هذا الكلام هرتا مركان المجالات سوق الله وحنا راشة جيرة علوسه مجالات كل عضي بروفيسور موسى عمر الجلده وجيريودي سجوا شلي قربتي يا وصوّدا شلي أفركين وعافات قبي وعافات قبره عشية سحورتي لقبتي وجيريودي جيريده واحد سيء أسليي سنة لو ورمي إن قبليسي أو لهايد أيلا متعرّا بشيء iyadoo halkii sariir jiifta loo sheegay inuu abeed geeriyooday iyadina naxdinta kooma gashay yana hadeer gooday ilaa oo labada mataanaana ka tagtay geerida culus iyaga ilaahay u naxariisto wixii muslimka horeeyna ilaahay u naxariisto inagana ilaahay nooga daba naxariisto qoyskiina ilaahay awr khayr qaba ilaahay isaga xigmadiisa badane qoyskii hawsha ku dhacday labada geeriyoodo ilaahay awr khayr qaba siiyo waxa kale oo tacsida raacin oo intaynu halkan fadhiyay warkiisuna soo gaaray Suldaan Ismaaciil Suldaan Aadan oo kamid ah odayaasha salaadiinta Hargeysa oo isna imika geeriyooday sida hadda intaan fadhiyay loo sheegay isagana ilaahay ha u naxariisto qaranka iyo herkiisina waa tacsiin uga direynaa ilaa jannadii firdawsa ka warabiyo isagana tacsiida kadib hawshan aanu nimay gurmadka laba qodob aan ka oran mid waxa weeye dad baa ka faalooday wasiiradii iyo gudoomiye maxay inta loo soo raacay waxa la soo raacaa marada wuxuu gurma tahay waxa la soo raacaya in meesha dhibaato jirta go'aankeeda cidii qaadan karaysa ay wada joogto mar walba go'aanka la qaato maariyadii madaxtooyadii iyo caafimaadkii wasiirka tacliintu ilaa burcawna la socda muxuu noola socdaa waa waqtiga imtixaanada qaranka dhan ardayda imtixaan bay fariisan lahayd cudurkana waa jira wuxuu leeyahay go'aanka maxaynu ka helaa ardayda ma la isu keeni karaa مثل السكر كذا iyadoo la tashanayo wasaaradda caafimaadka wasiirada kale ee gobolka deegaankii waxay u yimaadeen inay xoogaal ka noqdaan kana hawl galaan wacyigelinta iyo dadku waxay tabanayaan gobolkooda oo ay ka gaaraan go'aan goobta wixii loo baahay intaas waa wasiir socodkayga waxaan gaarayno waan ku guuleysano goob walba wixii go'aan loo baahnaa burco wajaale iyo halka boo qaadan xukuumadda wasiirada lagu amaani maayo waayo waa xilka qaranka oo hayaan waajibkoodii bay guteen ilaahayna waa kana aakhirana waa laga xisaabtamayaa ilaahooda kala xisaabtamaya inagu iyo ummaduna waa kula xisaabtamaysaa waa daba joognaa annagoo xisbiga aan taageerayaasha kulmiyo dhan baaba horta daba joogo war maxaa qabateen waa inaan marxaadka ana waxay qabanayaan inagu marxaad furan baan u leeyahay waajibaad qabtana waa ku amaanaynaa hadday dhalin la socdana waa ku qabanaynaa taasina waxaanu ka margnay siday u gurmadeen iyo tirada caafimaadka noo soo gudbiyay inay xukuumaddu iyadoo isku duuban hawsha biyanshiboodka hawl boqolkiiba boqol gurmada oo ummaduna ku bogaadso ilaahayna ka saaysiya ay guteen ilaahayna ugu gargaarno ka hortagay qodobka xiga waxaan tacsiyeena waxa la wixii ay naga dilay shombiyoodku dadka shombiyoodku dilo waa shuhada baa leeyahay iyaga kuwa badul qodaba waa shuhada ilaahayna waa naxariisto dadkoodina samariya bana laga sii qarankaba ilaahayna hay naga dulqaado cudurka inagu itaal badan oo iska cilmi leeyahay ilaahay baynu baryeernaa inuu soo abaartii naga dulqaaday kana naga dulqaado inaga maxaa la waajiba dib kasta oo dhacda waa imtixaan abaar baa shir jirtay way soo noqon doontaa waliba abaaraynu saddex sano ayaa gaarin berger 12 sano ahay afar sano way soo noqdaan xanuunka iyo caafimaadku waa walaalo way isla socdaan waa meerto nolosha ku dhisan dhalashada iyo geeridu waa mataana waa meerto midna waa dhimanaya midna uu dhalanaya waxay ka mid tahay imtixaanaadka nolosha ilaahay bini'aadmiga ugu talagalay marka waxaynu waajibaa dhibta ina soo marta inaynu 10 ka qaadano oo nu u diyaar garowno war baritana way soo noqonay maxaanu ka yeelaa haddii abaar tahay iyo haddii cudur tahay maanta shoobiyoodka wuxuuna baray kolka hore sida loo gurmanayo sida loo xakamaynayo maxaa laga qabanayaa عشرة بدن وإنهم بدن كانوا أقولين أيه إلى هاي كرر النقطة كابل ما دخلت نبره وحكروا إن بردت كان يا أمضان حفلة المات
haddii cid la bogaadinayo iyo haddii cid brotokool la siinayo horta caafimaadkaa guud ahaan leh caafimaadkuna wuu sii kala leeyahay aniga waxay la tahay waxa maanta mudnaanta ugu weyn leh oo xanuunka ina baray oo ummadda qadarin ka mudan iyo xishmad dhakhaatiirta kuwa ugu yaryar neersta ka bilow qolada cusbitaalka xaadha ka bilow kuwa bukaanka gacanta soo qaaday qolo waxaad qiyaasaan intaan halkaa fadhiyaan markay dhaqtarka soo galaan horta wada baqanayna qaar way wisuusan yihiin qaar ma soo galaan marka la yiraahdo halkii waxa la galayaa qolada shubanka dadka qaar ba midba dib u haraa xataa inay qofka u dhawaadaan ma ogola qolo waxaad ka warantaan inanka yar 20 jirka ah ee ka soo baxay caafimaadka ama inanta yar 20 jirka ah ama kaba yarba ama qofka kale ee dumar ee waayeera ee intay saxarada gacanta la galaan qofka buka isaga ka maydhaya ee nidaaminaya ee qashinka qaadaya iyo ka gubaya ka mas'uusha xaraya barka warraba maana geesiyaal qaran ahayn miyana sharaf iyo qadarin naga mulnay waanu baranay maanta ku baranay waxaan u baahanahay inaan caafimaadkeena xoojino wax badan horo dhakhaatiirta aqoonta u leh ee ka faraha la galaya inuu ka badbaado aqoonta u leh ee keena u tagaya inuu ka badbaado aqoonta u leh ee dawada loo baahayaa aqoonta u leh ee caalamka inoo la xiriiraya farta caafimaadka la garanay ku qoraya ee kaliitiye ka kala hormarinaya ee ay maanta haddii la badbaadada ku ka qof sidoo qof ka dhinteen 970 kaas miyaanay ahayn geesiyaal qaran dad xusuus badan dad ixtiraam ma ahayn taas waxayna faraysaa inaynu dhammaanteen caafimaadka miisaanka u leeyahay siino inaynu dhakhaatiir badan tababaro inaynu dugsiyo badan caafimaad furro inaynu miisaan samayno college si ay nolosheenu badbaado sida meelo kala badan ay nooga baahan yihiin dhakhtarku wuxuu nooga baahan yahay yarnaaristo salaan iyo fadhigood wuu kacnaad inaan khayro tirin waayo hawshan talag baynu qabteen oo inaan dhammaanteen qaban karin sidaa darteed waxaanu baahnaa mustaqbalka tala galno inaan caafimaadka kor qaadno oo goob wal oo dalkeenaba haddaynu maalin quraqaadka iska daysa boorama 20 ambulance bay iibin kartaa meel walba MCH baan ku dhislahay maanta uma inaan daydeen mushaarada keena haddaynu qaadka maalin iska dayno boorama kali iyo magaalo waliba inta qaadka iyo kharashka naga baxsan bala macna weyn u dhow karaa waa inay noqotaa 10 aynu ka baranno oo martax ku qoran inta waxaan uga gudbi samsamiyo kamid ah hadalay iyo wasiirkeedu waxay go'aan gaareen shaqo waxa ka codsateen baalkeen ambulance baa loo baahan yahay maadaama tuulaash walaal la gaarin imika waxay go'aan gaareen in kiila la soo diro maalmaha soo socda ambulance waxaan wada xisbi ahaan dadka kulmiye taageerashada ayaan ugu baaqnaa dhibaatooyinka jira haday abaar tahay iyo haday caafimaad tahay maanta boorama waxa halka ugu mudan baa leeyahay loo baahan yahay waxa jira markuu shuban biyoodkii bilaabmay xajbi shaqaale wasaaradda caafimaadka gobolka way kooweynad dad baa gurmad qoray dhalinyaro iyo waayeel baa ka shaqeeya dadkaasi miisaanada mushaaradu kuma jirin kuna u baahay iyo mushaar iyo hawlo yar oo kale markii aanu waraysanay wasaaradda caafimaadka waxaanu xisbi ahaan dadkii kulmiye aanu idinka sidaa meel kasta baa joogana $30,000 oo lagu maamulayo dunida dadka caafimaadka gurmadka ugu shaqeeya iyo wixii kale hawlo baahay arintuna soo noqoshada dambe kasbana waa والله أصلاً شكر رب الله سبحانه قال أنت مركان تاسين حتى من الوجهية سي أرنت تاسي بل أنت قل متكلو حوق لي منايو أي قالوا وحن كل علنيا هاي الوجه وحن كنا حصليا وروح وين وقبسان كراه ما ندى قال لي إن ما همرك واحد عام إن الهرشة أمر بعد عالم كون السوق قال روب كيهرو ينتظر نقول أيوه in marka qof inaga xanuusa ama dhaxruucaan aynu qanoolana soo gaara waardad kaynu bariyeen oo isku mid baynu nahay 9 bilood bay ku dhasheen dhulkeenu ku nool waa kale ku nool yihiin aqli iyo tamar bay waxooda ku qabsadeen lacagta loo uriyana waa sadaqad wax kala ma aha kiniisaha laga soo uriya dariiqada la iska taaga markaas ay hay'adaha safe children iyo who iyo qolada la qayrta casiya bisha caso imika dadaala iyo dad indhago kale sadaqada soo bixiyaan ayaa maanta dawada xooggeeda iyo gudubka ku hadlay waynu leenahay awoodii 9 bilood baynu ku dhalanay aqoonteena waynu leenahay dalkeena waynu leenahay nacasnimadeena haysa qaran ahaan waxaan qabaa meelaheena muhiimka inaan u jeedsano oo aynu ka baxno sanamka aynu nahay oo isku tashana qaba taa fariintaana qaranku dhammaan diraya dhalinyaro iyo daaweyn iyo daayarbana waa waajibna saaran aad iyo aad u mahadsantihiin